waxay dheen lacagta $200 baa idin qoran war anaga masaakiin anahay waxa heesano mala qaxootiya degannahay waxaasna ma awoodno ninka dhalaya keena lacagtaasna waa la idin ka rabaa ilaa ana caloosha ka qalanay ma socon karo mooto raac ma heesto qaxootigaas weeyada waa degannahay 2 maalmood 3 maalmood kadib markaas soo booqdo lacagta 1500 ee gaartay waa cunug dhalan 21 maalmood oo lacag dhan $1,500 oo dollarka Mareykanka loogu haysto mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. gabadheeda u baahnaa waxa maanta ku soo baxsadan meeste caawinaada u baahnaa muddo oo 20 cisho ee gabadheeda iga haystaan maalmahaas maalin ka mid ah way ii diideen inaa galo oo naaskaasi xitaa ilaa lacagtii aa bixiyo waa ka tagay $150 ah xaafadaha ka soo aruuriye u geeyay marka u geeyeen waxay dheen 150 kaas maalmaha kale ay sii joogi doontaa lagu daaweynaa ee $500 waa laga rabaa mar walba amba aabeeda laga rabaa amba damaanada keensanaysan amba $500 keensanaysan gabadhan saas ma ogiyo si kale lagu wadaayo male qofka aad dhahday damiinan wuxuu ku leeyahay adaa qaxooti ah hadaa ku damiinto maxaa ku bixinay damaanadna waa lacagna waa anoo hooyadeeda ah 21 cisho gabadheeda meesha iiga jirtaa maalintii markaa inaan nuujiye ii diideen meesha ay ku qayliin waxay dhaheen u fasaxa markaas ka dibay i fasaxeen maamulka u tag maamulkii u tagay dhibaatadii waa u sheegtay ilaa lacagtii ay bixisid ma ogiye meeshaan waxay dhaheen in lagu diidaa macquul waxa ii diidi kartiin ma la gabadheeda ana dhalay mana iga celi kartiin dhalay marka xoogo aqeeliin waxay dheen ordo u fasaxa hada umursan gabadheeda u baahnaa waxa maanta ku soo baxsadan meeste caawinaada u baahnaa anoo Faadumo Xasan Hilowle nambarkeega 42 waay 12 46 36 walaalaha muslimiinta waxaa ka codsanaya gabadheeda inay meesha iga soo bixiyaan